sidaa la socotaanba waxaa waddankan booqasho rasmiya ku jooga madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynuhu hadda magaalada London jooga ayaa waxaa la filayaa Khamiista soo socota inuu booqashadan ku yimaado magaalada Birmingham dadweynaha ku dhaqan magaalada Birmingham ayaa runtii aad iyo aad u sugila imaanshaha madaxweynaha anagu bahda ETN TV haddaanu nahay waxaanu kaamarada la dhex qaadnay dadweynaha ku dhaqan magaalada Birmingham iyo fikradooda ay ka qabaan dadweynuhu say isugu jiraan qaarna waa mucaarad qaarna waxay jecel yihiin inay soo dhaweeyaan madaxweynaha dadweynaha waxaa ka mid ahaa hadaladoodii adigoo magacaa ku bilaabaya sidee baad u aragtaa imaanshaha Sheekh Shariif magaalada Birmingham shirka lagu qaban doono magaalada Birminghamna ma ka qayb galaysaa aniga oo magacaygu yahay Xaaji Saalax Maxamuud ma ka qayb gali mayno sababta oo ah uma aragno dan Soomaaliyeed inuu wado inuu dadkii waxa la filayay inuu dadka isku soo dhaweeyo inuu nabadgeliyo abuuro inuu calool xumada ummadda ku kala jirta sidii uu ku ballan qaaday uu u galo oo u hagaajo waxa la arkay inuu si kale wax u wado marka sababta darteed ka qayb gali mayno waxaan aaminsanahay nin madaxweynihiisa uu imaanaya sababtoo ah wadankii qurbaha 20 sano Soomaaliya dhibaato ka jirta waa weyn hadda waxaan aaminsanahay madaxweynihiina booqasho rasmi ah ka helay Ingiriiska oo hadda London ku sugan Birmingham imaanaya waxaan aaminsanahay aad iyo aad shucuurtii u kacsan inaan aad iyo aad u soo dhaweeyo waxaan aad ugu faraxsanahay waxaan aaminsanahay qof kasta oo Soomaaliya inay waajib ku tahay madaxweynihiisa inuu ka soo qayb galo soo dhaweeyo oo martiin u yahay dadka degan Birmingham London si u soo dhaweeyo ka fiican u soo dhaweeyna rajayna daaray Birminghamna waana imaanshaha Shariif waxaan u arkaa wax faa'iido ah oo u leeyahay ummadda Soomaaliyeed inuu san jirin uu dib iyo dhibaato u siyaadinayo sababtu waxa weeye waxa loo soo doortay inuu ummadda Soomaaliyeed mideeyo inuu isu keeno inuu mataqaanaa dhibaatada socota joojiyo dib u heshiisiinna ka shaqeeyo gobolada nabadana uu hagaajiyo taagsigeedana wuxuu mataqaanaa sameeyaa gobolada nabadana dagaal iyo wuxuu ka wadaa iyo cadaadis iyo cunaqabatayn iyo heshiis la'aan intii kalena waxa ka socota colaad iyo aan dhamaad lahayn baa ka socota in uu shaqada wadanka dadka loo xil saarayo in laga dhigo dad u qalma baa madaxweynahana aan kula tali lahayn isagana waxaan ku soo dhaweynaynaa waagii uu Sheekh Shariif ahay ilaa hadda sheekheena inuu yahay shariifkeena inuu yahay waxaan leenahay welcome madaxweyne jira Allah ka dhigo waa salaamantiina haddaba Shariifka in badan baanu u sacbinaynay ilaa iyo maalintii maxaakiimta oo aanu aad u soo dhaweynaynay isagoo aanu filaynay inuu noqon doono midda ama ninka ka saari kara ummadda dhibaatada ka saari kara haddii uu gaaray kursiga iyo meeshii la rabay uu gaaray wuxuu u muuqday nin aan dhibaatada jirta ka saari karayn ummadda marka waxaan aaminsanahay saacabiskii hore baa noogu filan jaamay noogu filan waad ogtahay waxa maanta ka dhacaya goboladii Soomaaliya caasimadii Muqdisho ugu horeyso dadkii barakacooda dhibaatadooda madaafiicda dhacaysa muxuu ay sheegay caruurtii maatidii dumarkii dad aan weligood hore u qaxin baa qaxay dad aan meesha aan dhaqaaqi jirin baa cararay dad aan meeshii waxa dhacday waxaan la arkin oo la maqal madaxweynaha federaalka Sheekh Shariif waana fursad qaali ah inuu maanta noogu yimaado magaalada caasimadda labaad ee Birmingham waa minaan in dhowr sugeynay haddaan chance u helnay aad baan u soo dhaweynaynaa runtii anigu Shariif ma oranayo madaxweynaha Soomaaliyeed baan leenahay saasa mataqaanaa baan u aqoonsanahay inuu yahay madaxweynaha Soomaaliyeed laakiin waxaan rabnaa inaan mataqaanaa aan toosino oo mataqaanaa uu dib u xisaabtamo ummadii madaxweynaha uu ahaa waxa weeye intii mataqaanaa meeshu hadda ka yimidna waad ogtiin dhibaatada ka taagan yacni nabad ma haystaan umana nabadda loogu raadin lahayn ma hayo kuwii goboladii nabadda haystayna waxaad moodaa mataqaanaa inuusan danaynayno si ay nabadda ay ku waayi lahaayeen inuu mataqaanaa raadkeedu ku joogo marka sabab anagu mataqaanaa aan anagu hadda uga qaybgalno shirkiisana ma jirto waxaana leenahay waa inuu xisaabtamo dib u xisaabtamo wadada hadda uu ku taagan yahay ma ahan tii horumarka tii midnimada Soomaaliyeed ma ahan tii loo doortayna ma aha markaan kulay shakhsi ahaan xisaabiyo de sanad iyo dheeraad buu maraya wax aan ku xuso iyo wax wana horumara oo aan oran karo maanta waad ugu horteegi kartaa iyo waad ugu sacbin kartaa igama muuqato
barnaamijkan insha Allah oo dhameystiran waxaanu soo dayn doonaa hadduu Ilaahay idmo jimcaha soo socda ayaanaad kala socon doontaan telefishinka caalamiga ee ATN Television. Yusuf Ahmed Mahdi, ATN TV, Birmingham.